hadalka waxaan u aragnaa madaxweynihii hore ee madaxweynkiisa dhammaaday inuu yahay mid aan wanaag ka talinaynin wixii laga sugaayay aanan sheegin wixii danta Soomaaliyeed ku jirta aanan sheegin wixii la isku hayay aanan ka hadal wada saxane aanan ku jawaabin u haysanaa inuu yahay madaxweyne Farmaajo waxa uu sheegay in wada hadallada dib loogu laabto oo aan wax shuruud ah lagu xirin marka ma ku muuqataa inaan shuruudo dambe lagu xirin oo sida lagu aado doorashada xilligeeda kadib dhacday magaaladan dagaal ka dhacay dada ishor fadhiya waxa sababana waxay aad muddo kororsigiisa dada barakaco dhibaato soo gaartay dada jawaabay oo jawaab bixiyo siyaasadeed in meel la aada la isku ogaa oo talo Soomaaliyeed oo garasho leh Farmaajo hadduu wax garanayo waxay ahayd inuu Soomaali macsalaameey oo iska tago oo si dhibka asaga dhibaatada keenay ka dhashay oo xaliyo inuu inta soo istaagay yiraahdo baarlamaanka waxaan geynayaa sabdiga saas yeelana baarlamaanku hay'ad ka raaniyo xafiiskiisa ka shaqeysa golaha shacabka markuu leeyahay ka noqdo go'aankii aan leeyahay waxa muuqata in muddo kordhinta laga laabtay dibna loogu laaban doono wada hadallada doorashada marka diyaar ma u tihiin inaad magaalada ka saartaan ciidamada idin taabacsan ciidamada anagana taabacsan oo magaalada keena walaalay ma jiraan meesha ka keentana adaa laga rabaa ciidankaas ciidamada qalabka sida qaybiisa kala duwan ay ka tirsan yihiin ayaga diiday muddo kordhintay diideen ayagoo Farmaajo hoos jooga oo uu taliye u yahay soo diideen muddo kordhinta kuwa magaalada yimid ee furmaha ka baxayna ayaga cadeeyo muddo kordhintay diideen waxa la isku hayana muddo kordhinta waaye Farmaajona afkiisa muddo kordhintiyan ka noqday kama soo bixin baarlamaankan sabdiga tagaya oo ajenda geynaa u dhahay baarlamaanka ra'iisul wasaaraha hortaga baarlamaan ma jiray hal golo shacab kaliya 57 qofood oo asaga raacsan iyo gudoomiye baarlamaan aan inqilaabka dalkan sameeyay oo muddo kororsi sharci darro oo xalaal ahayn ka taliyay ayagiina fidna kastaan ka fili karnaa sabdiga waana u digaynaaba inay fidna kala dalkan ka sii abaabulin marka nin wax ka noqday ma jiraan laakiin waxa la idinku eedeynayaa kala qaybsanaanta ciidamada oo aad qaab qabiil ah Muqdisho u soo geliseen gutooyin idin taageersan marka ma u ogolaanaysaan ciidamadaas inay furimahooda ku laabtaan oo aad joojisaan kala qaybinta markii taliyaha booliska gobolka Banaadir oo lahaa extension ma ogoli muddo kororsi ma ogoli managa ka shaqeyn ciidamada qaarkood markay magaalada shirjir ku qabteen extensionka ama muddo kororsiga dhibaato keenay managa ka shaqeyn kuwa furmaha ka soo baxay saraakiisha sarsara ay yiri muddo kororsi ma ogoli managa ka shaqeyn dadku Soomaalida ama ciidan ha ahaado ama siyaasi ha ahaado ama aqal sare ha ahaado ama dowlad goboleedo intii ka dhameeyay sharci go'aan qaateen iyo ra'iisul ha ahaadaan dadku waa garanayeen muddo kororsiga dhibaatada uu keenay qof kastana go'aankiisa asaga qaatay cid soo saartay male waana gaf in la yiraahdo qof aan meel ka soo saar dadku ayaga go'aankooda iskale Farmaajo iyo muddo kororsigiisana waa diideen waxa uu roon ninkaas inuu Soomaali macsalaameeyo ama inta meel fadhiisa shaqada doorashada ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda iyo dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka iyo saamiliyada kala faraha uga qaado oo maalintii hadii uu rabo inuu u yimaado tartan uu diyaar u yahay maba u ha tartan oo soo fadhiisan qabnaanay